waryaadahan halo waa kumayo xorxil diid waa anigii soo laabtay soo sheekadii ku saabsanayd dee lunar eclipse-kii soo dhammaanaysay gabagabadii ilaan waxaynu gelaynaa full moonkii tomorrow bishii waa 16 ya marka wixii ku saabsanaa cilmiga qarsoon ya baa banaanka usoo wada baxaya ilaan weli Venus ya Scorpio ay ku jirtaa waxaan maalintii dhaweytay waxaan waxay ka soo horjeedaa Uranus ya marka sheekadii Uranus baa idinka sheekeynaya and lunar eclipse kan dhacayna dee waxa horseed u ahayd ama waday and maxaa la yiraahdaa and zodiac ama xidiga la yiraahdo planetka la yiraahdo and Aries no waa wanka ya wankuna wuxuu ka mid yahay wanku waxa weeye and male sheep so maaha marka waxa weeye ariga ya arigii baa soo xeroonaya ya marka hangoolkii yahay ya ilaan horta magaciisi wala sheekadiisana waa idin galaya ya isaga iyo xisbigiisa ucud ya iyo hangoolka uu sito taasna waynu ka sheekayn doonaa and iyo de waxaan yiri Venus ya habartii jacaylka habartii lamaanaha habartii ku saabsanayd waxa cusub waxa qurux badan ya habartii jacaylka ya ilaan habra is wada haysta Soomaaliya Soomaha nimankuna way daawanayaan qaarkoodna sheekooyinkan bay ku dhex lumeen because nimanku basically ragu ma aragtay boqolkiiba sano sheekada markay soo wadaan way lumaan ya ilaan naaguhun baa makaanka isku liiba sheekada because adigu gabadh hadaa tahay ya ayayda ukuntay dhali lahayd oo dhan way ku sidatay maalintay dhasha ma fahanteen oo hooyada iyo adigaba way ku xambaaraysay iyadana dee 3 generation baa ku horeeyay wax kasta waa 3 geesoode marka ukuntani say u socotay laakiin gabdhuhu waxay leeyihiin the ability maaragtay ay ku arkayaan 3 generations boqolkaas sanaba sheekadu dhan way hayaan iyagu ninku laakiin markastaba isagoo cusub buu dhalanaya ya marka hadaan hogaankii gabdhaha jirin ya garab baa lagu yiri ya garabkay ka dhalatay waa maxay de intelligence-ka ama maxaa la yiraahdaa biyahan iyadu ka dhalanayso ama ninku ka dhalanayo xagee ka yimaadeen de garabka aabaheed bay ku jirtaa spermka ninka xagee ku jirtaa waxay ka imanaysaa dhinaca Soomaha marka intelligence-kii bay iyadu isagu sida de meeshuu ku shubaya dhiladu ku shubay wallahi it's funny Soomaaliga ay fiirsada dhil lo ya ila taana lagu shubay meeshuu ku shubay umbu hadhow toolada cilmigan iyo waxa lagu sheegay ka soo baxaya ya marka imika waa waqtigii ukunta la isku haystay baadka la isku haystay and halkaas uu ka imanaya woonku wallahi dad u fiirsatid video baa ku jira meesha af Soomaali baa xitaa meesha ku soo dhigayba and waxaan u sheegay ba my ex mother in law ya kii qabay oo magacooda family name-kooda Cabdiraxiim baa la yiraahdaa ya Cabdiraxiim waa abtigay Cabdiraxiim baa la yiraahdaa ya markaasaan yiri magaca Raxiim iyo Raxmaan waa isku macno weeye hadaad ereyga asalkiisa ama rootkiisa raacdid raxam bay ka bilaamaysaa raxamna waa de waxa shaqalaha ama daaqaska ku daraya Soomaha marka waxaan yiri raxamkan hadaad u fiirsatid raxam waxa oo loo yaqaana waa woomka ama makaanka ya ereyga makaahil Michael xaqas uu ka imanaya Michaelna galbeedku ama de maxaa la yiraahdaa injiilka waxa ku taala Michael inuu yahay malagii xooga badnaa ee dadka u hiiliya ya nadaandeen marka sheekooyinkan dhan waa inaad garanaysid meesha ka soo wada alifmeen ya iyo sida loo aasaasay iyo waa cilmi isla wada socda weeye adduunka dhan baa wax kasta way isku daba xidhay marka lagu leeyahay the one ya oneness of God iyo ilaahay waa hal weeye halkan xigay ka imaadeen hal waa hada dhinaca kale u akhrinid waa la weeye laana waa maxay laana waa waxa weeye dayaxa ya dayuxuna waa maxay dayuxuna ku saabsan yahay arrimaha qarsoon ya Islamically dayaxa loo tiriyaa waxa weeye calendarka ama waqti tiriska oo maanta wallahi bilaa bish waa 15 October waxdaas fahmay
يا تاريخ تبان دي بيقول لابتي لامبيشن waxay idaahaan waa October ma fahantay Octoberna calendarka intaan la bedelin yaa intaan Gregorian calendarka la gelin waxa lagu jiray calendarkii hore Julius Caesar la oranayay yaa waa guuleed Juliet hada u fiirsatay Juliet waa guuleed yaa guuleed calendar markii lagu jiray bisha October waa bishii 8 ahayd 8kuna waxa la yiraahdaa waa infinity sign 8ku aragtay waa iska daba wareegsi weey waa beginning iyo endkii ma arkaysid laakiin waxba dhexda ka oranaya hadaad wax fahmaysid weey yaa waa infinity sign-ka waa magacan also loo yaqaano magaceedii ama de loo yaqaano planet-kan imika Venus godka Scorpio ku dhex jirtaa laakiin triangle bay la sameynaysaa ama it opposes Uranusna orbital the orbital circle kiisu sameeyo yeah the exactly meesha kusoo laabanayo waxay qaadataa maxaan ku idhaahayay 84 sano 84 sano yeah marka left iyo right waana wax u aqri karaysid yeah sometimes wallahi billahi waxbaan ku reexamarku ama reer comfort southern people southern clans walaa waqtiga say u tiriyaan sometimes anaaba confused ku noqda 4 saac 5 saac bay ku leeyihiin military time bay ka hadlayaan waa waqtiga military-ga because waqtiga military-ga iyo waqtiga civilians way kala duwan yihiin marka sheekooyin badan baa rabaa inaan soo yar dhigo oo de ku saabsan new moon-kan ama de dayaxan cusub ya oo de eclipse-kii markii laga soo baxay ya ilaa eclipse-ku maalmo kala duwan yaa 2 jeer buu dhacay October-kan meelo kala duwan waqtiyaalo kala duwan buu dhacay but energy-gii baa weli aan wadnaa yaa waa waqtigii la is sixrayay marka waxaan rabaa inaan yar wax idinga fahamsiiyo beerta xawayaanka astaamaha qabiilada ay haystaan qabiil kastaba wuxuu haystaa xawayaan buu ka dhigtaa soo maaha symbolkiisa ya marka xawayaan kastaba symbolkiisa yar idinka sheekeynaya especially waqooyi hadaynu nahay ya reer waqooyi ya astaamahooda ku saabsan xawayaanka ayagu astaan u qaateen iyo dabeecadooda iyo behavior iyo traitskooda iyo the negative stuff because waad arki doontaa the negative traitska way soo bixi doonaa waad ku arkaysaa qabiilada because astaanta xawayaanka ay qaateen baaba saasa yaa waxaan waa wada energy way so waxyaalo badan oo very interesting ayaa idin soo bixi doona wallahi maanta waxay boqolaal waxa maskaxdeeda igu soo dhacay yeah so sometimes it's very hard yeah wallahi fartayda iyo maskaxdaydu haddaan siraa qor xitaa waxaan ahay qofkan xitaa marka wax qorayo ma akhri karaysid ba waxaan qoray because maskaxdayda yeah maxaa la yidhaha my internal dialogue yeah muxuu sameeyaa 360 degrees waxbaa isku geynaya kala goynaya fartuna markaa gaadhsiinayso mogtahay marka sometimes xitaa aniga u fiirsada waxani maxay haayeen mar kastaba waxaan qoraa wixii short hand yeah xitaa saan u hadlaba waa very short hand dadku waxay jecel yihiin details waxaas waa sheeko aad soo alifaysid laakiin anigu wixii markaan rabo inaan dadka ka dhaadhiciyo it's like waxaan rabaa pointyadii just inaan quickly siiyo yeah cilmiga adigu waa inaad isku daydid oo waxaan ka fahantid waxaan necebahayba dadka sheeko dheer kula gala no give me little details and then dadku waa inay iyagu curious enough yihiin yeah oy rabaan inay wixii raadiyaan yeah cilmiga saas uu shaqeeyaa ma fahanteen marka intan waa intaa yar oo idin sheegay but 9 minutes bayba gaadhayba intaasi marka intii kale aan kusii xigsiinaya ayaa waa qaybtii koobaad sheekadii dheerayd ya oo haddana gaagaab iskale ya